Manchester United ayaa si toos ah u siin doonta Ole Gunnar Solskjaer shaqada haddii tababarahani uu garaaco kooxda PSG tartanka Champions League. Macalinka cusub ee Red Devils ayaa ku bilowday si cajiib ah talada Old Trafford isagoona adkaaday 8 jeer halka uu bareejeeyay hal kulan 9 ciyaarood ee uu leelinayay. Solskjaer ayaa bedelay dareenka kooxda waxa uu si la yaab leh dib ugu soo celiyay ka qayb ahaanshaha kooxaha u tartamaya top 4 ama afarta sare kadib musiibadii Jose Mourinho. Ninkan reer Norway ayaa la kulmay dib u dhaciisii ugu horeeyay inta uu talada hayo habeennimadii Talaadada kadib barbardhacii 2-2 ahaa ee hoomkooda ay kula galeen kulan ay ku wajaheen kooxda la daaladhacaysa Premier League ee Burnley. laakiin xitaa tani ayaa waxaa aad ula dhacay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee kooxda in ay dib u soo noqdaan xilli 2 gool oo dambe ay la yimaadeen si ay ciyaarta u bareejeeyaan ayagoona lagu hogaaminayay 2 gool xilli 5 daqiiqo oo keliya ay ciyaartu ka harsaneyd. waxaa la ogsoon yahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha fulinta kooxda United-ka Ed Woodward in uu wadahadalo kula yeeshay tababaraha cusub toddobaadkii aynu ka soo gudubnay xerada tababarka Carrington isagoona ugu hambaliyay shaqada wanaagsan ee ilaa iyo hadda uu qabtay. waxa uuna ugu yaboohay in uu u qaban doono wax allaale iyo wax kasta uu uga baahdo. waxaana inta ugu badan xidigaha kooxda Manchester United iyo qaar ka tirsan staafka kooxda ay aaminsan yihiin in Ole Gunnar Solskjaer uu shaqada si buuxda gacanta ugu dhigi doono waa haddii ay ka gudbaan PSG tartanka Champions League bishan February. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso.